waxa weeye inaan ogaano weeye waddan kastaaba horumarkiisu wuxuu ku xiran yahay bulshadiisa iyo aqoonteeda. horumarka waddanku kuma xirna khayraadka dabiiciga leedahay. Soomaaliya waddan xor waddan qani ah weeye. waxaan leenahay badda u dheer Afrika ayaanu leenahay. waxaanu leenahay dhul ilaa 9 milyan hektar gaaraya oo yani ku habboon beeraha. waxaanu leenahay xoolo tiro badan, laakiin haddana waa ka gaajaysannahay. sababta maxay tahay? waxa weeye waxaa yar aqoontii yani aqoonta kaga faa'iidaysan lahay khayraadka iyaga ayaa aad u hooseysa. marka horumar dalka waxaa gaarsiin kara aqoonta dadkaasi ay leeyihiin. marka in waxbarashada la helo oo lagu dadaalo aqoonta dhalinyarada iyo jiilalka soo koraya ee soo socda ee berito noqonaya mustaqbalka dalka waxay ahayd lagama maarmaan. waxaad ogaataan in ka yar 8 bilood 6 bilood ayaa xukuumadaydu waxay siisay deeq waxbarasho in ka badan 3,000 oo arday oo aaday wadamo kala duwan. ay ka mid yihiin Masar, ay ka mid yihiin Turkiga oo runtii aad noo gacan qabtay. ilaa haddana asleenahay waxa weeye wax badan bay ka qabteen dhanka waxbarashada. Suudaan, Iiraan, Maleeshiya, wadamo kaloo badan. waxa weeye marka waxaan ku dadaalaynaa in 4 sano 5 sano ka bacdi ay soo laabtaan waddanka kaadir xoog badan oo waxbarasho aqoon fiican leh, waddankana ka saari kara dhibaatada uu ku jiro, soo saari karaan awoodda dhaqaale ee dalka.